السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalyaal waa salaamintiin meel kasta aad dunida ka joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeena maskax godol mawduuciisa maantana waxaan ku soo qaadan doonaa dhibaatooyinka laga dhaxlo daawashada filimaanta jinsiga haddaba daawasho wacan inta aan gudaha u galin mawduuceena haddii aad markii ugu horreysay soo booqatay janalkan fadlan subscribe saar si aad u hesho barnaamij kasta cusub aan soo gelino waxaad taaban kartaa sumadda gambareelka ee dhanka midig ka xigta subscribe-ka wax walba uu alla reebay faa'iido ayaa ugu jirto bilaadanka inay ka haraan ha ogaadaan ama yeesan ogaan daawashada filimaanta jinsiga waa dhibaato dunida ku baahday waxayna dhibaato weyn ku haysaa diintaada caafimaadkaada iyo noloshaada guud waxayna horseedaa duminta iyo burburka qoyska waxaan halkan idinku soo gudbin doonaa warbixino laga soo arooriyay cilmi baariso kala duwan oo sheegay in daawashada filimaanta jinsiga ay isbeddelo duwan ku sameeyaan maskaxda bilaadanka dhibaatooyin badanna u horseedaan waxaana ka mid ah kow in aadan xaaskaaga ku qancin maskaxda bilaadanka wuxuu alla ku abuuray xarumo u xilsaaran dareenka kacsiga iyo raaxaysiga waxaana loo yaqaanaa arousal centers hadduu qofka joogteeyo daawashada filimaanta iyo sawirada qaawan waxay maskaxda la qabsanaysaa in daawashadaas oo keliya ay dareen ku helaan dad badan oo laga wareystay arrintan waxay sheegeen in xitaa markii ay haweenkooda la kulmaayaan inay suuraystaan sawiradii iyo filimaantii ay daawadeen si ay dareen u helaan laakiin si dabiici ah aysan howsha u gudan karin labo dareenkii dabiiciga ahaa oo dhumo bilaadanka wuxuu alla ku abuuray qaab si dabiici ah oo dareen ugu helo waxaana caafimaad ahaan loo yaqaanaa natural sex drive daawashada filimaanta jinsiga waxay lumiyaan dareemahaas wuxuu qofka noqonayaa inuu dareenkii si dabiici ah ku heli waayo ama waxyaabo aad loola yaabo inuu dareen ku helo waxyaabahaas uu ku caadaystay daawashada filimaantaas sida in la garaaco la ceejiyo la jirdilo la kufsado iyo waxyaabo qofka bilaadanka dabiiciga ah aan u cuntumin saddex fikrado qaldan oo aan jirin inuu qofka aamino filimaanta jinsiga waxay faafiyaan fikrado qaldan oo qofka uu aamini karo inay dabiici tahay in sidaa la sameeyo ama sidaas la arko ama sidaas la noqdo haddii aysan dhicinne in qofka ay wax ka qaldan yihiin ama xaaskiisa uu arko inaysan lahayn muuqaal oo dareen ku heli karo maadaama qaab iyo muuqaal gooni ah maskaxdiisa lagu beeray taasoo keeni karta in qofka inay jab ku abuuranto ama isku taxluujiyo waxyaabo aan jirin inuu raadiyo ama gurigiisaba ku dumiyo afar jinsi aan jecel iyo kalgacayl la socon ilaahi wuxuu labada qof ee isqaba dhex dhigay galgacayl iyo jacayl taasoo iskutegooda lagu xaqiijin karo waxyaabo badan oo ka qayb qaato farxadda iyo reeraynta nolosha laakiin daawashada filimaanta jinsiga waxay qofka ku beertaa fikrad ah in iskutaga dhanba uu yahay fal la samaynayo oo keliya taasoo ay ka maqan tahay wixii kale ee asalka ahaa ee dareenka kalgacaylka naxariista iyo hilowga taasoo afka ingilishka lagu dhaho intimacy waana arrin muhiim u ah lamaanayaasha xalaasha isku ah shan mar walba wax dheeraad ah inuu raadiyo qofka khamriga cabo ama isticmaalo maandooriyaasha kale mar walba marka ka dambayso waa inuu kordhiyaa si uu u helo marqaankii uu heli jiray maxaa yeelay qiyaastii hore uu isticmaali jiray kuma filnaa daawashada filimaanta jinsiga waa la mid taasi waxay keentay inuu qofku u raadiyo waxyaabo aan dabiici ahayn si uu raaxo ama dareen kacsi ah u helo waxayna tani u horseedaa in guryaha ku dumaan lamaanahana ay isku fahmi waayaan qofkana uu la soo baxo dibci aan lagu aqoon lix kacsiga iyo hamiyarada waa cilladda ugu weyn ee laga dhaxlo joogtaynta daawashada filimaanta jinsiga cudurkan howlgabka ama hamiyarada wuxuu ku yimaadaa iyadoo aan qulqulka dhiigga soo gaarin ama uusan joogtoobin kadibna aad isku aragto inaadan kacsan karin ama muddo yar keliya aad kacsato toddobo biyibaxa degdegga ah waa dhibaato kale oo laga dhaxlo daawashada filimaanta jinsiga taasoo ka timaada in qofka uu ka lumo kontaroolka xakamaynta dareenkiisa caafimaad ahaan waxaa loo yaqaanaa premature ejaculation waa xaalad ragga uu ku biyibaxo muddo 2 daqiiqo gudahood ah inkastoo ay jiraan waxyaabo kale oo keena sideed caadaysiga iyo ku qancidda siigaysiga waa dhibaato kale oo laga dhaxlo daawashada filimaanta jinsiga wuxuuna qofka gaarayaa heer uu gacantiisa uu kaga maarmo xaaskiisa taasoo dhibaato weyn ku ah wada noolaanshaha qoyska sagaal debci anaanimo la qabsashada filimaanta jinsiga waxay qofka ku abuurtaa inuu ka fakero keliya naftiisa iyo siduu u raaxaysan lahaa isagoo aan ka fikirin baahida iyo dareenka lamaanihiisa una arkin inay muhiim tahay 10 isbeddel ku yimaada qaabka uu lamaanaha ula dhaqmo tan waa fikrad qaldan oo qofka ku barto filimaanta jinsiga kuwaasoo haweenta badanaa u sawiro qaab sidii qalab la adeegsado oo kale
oo aanan wax ixtiraam ama qadarin mudneen qofkaasoo ula dhaqmi kara lamaanihiisa ama ka codsado inay sidaa ula dhaqanto taasoo mararka qaar diinta iyo dhaqankaba ka baxsan. 11 hilmaan aadan hore u lahaan jirin. daawashada filimaanta jinsiga oo la joogteeyo waxay dhaawacaan xasuusta qofka wuxuuna qofka isku arki karaa hilmaan badan iyo diirad saaris la'aan taas oo loo saaray in unugyada maskaxda dareenka ay si xad dhaaf ah oo joogto ah u shaqeeyaan. arrintaas oo keenayso in maskaxda ay ku jirto xaaladdaas muddo badan qofkana ay u keeni karto stress, hurdo qarow leh iyo hilmaan, waana arrin ku badan dhallinyarada. dhibaatadan waa mid hadda dunida si aad ugu faaftay waxayna ka soo bilaabatay waddamada reer galbeedka waxaana meelaha qaar ka jira xarumo lagu daaweeyo kuwalfidda daawashada filimaanta jinsiga loola yaqaano porn addiction. meelaha qaar waxaa ka furan xarumo la talin ah oo lagu badbaadiyey qoysaska uu kala fogeeyey daawashada jinsiga. haddaba intaan oo dhibaato ah waxaa loogu badbaadi karaa in qofka alla ku xirnaado kana fogaado wixii laga reebay isagoo aan ka fikiraynin dhinaca caafimaadka oo keliya.